fadhigii maanta ee xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo aan hayn fadhi caadi ah ayaa waxa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Mudane Baasha Maxamed Faarax xildhibaanada ayaa u balansanaa meel marinta labadii xubnood ee xisbiyada mucaaradka Soomaaliland u metelayay komishanka qaranka Soomaaliland waxaana xildhibaanada hor yimid labadaasi xubnood ee iyagoo labada xisbi mucaarad u metelayay komishanka qaranka xogayaha golaha wakiilada Soomaaliland Mudane Cabdirasaaq Siciid ayaa xildhibaanada hortooda ka akhriyay taariikh nololeedkii iyo waayihii ay soo mareen labadaasi xubnood guddiga arrimaha guduhu markay aragtay qodobka afraad ee heshiiska sida wadajirka ay u saxeexeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga wadani iyo gudoomiyaha xisbiga ucud kaasoo la dhisayo guddi howlgalkoodu socoto oo uu Cabdifataax Ibraahim Xasan xubin muhiim ka yahay waxay guddidu golaha wakiilada ku qanciyeen in Cabdifataax Ibraahim Xasan aanu buuxin shuruudihii looga baahnaa xubinta guddiga doorashooyinka qaranka Maxamuud Siciid Dalmar Ergaada secondary school buu ka soo baxay September 1986 London Capital College 1991-94 London University ayuu ka baxay wuxuu ka qaatay bachelor September 202 London buu ka baxay halkan waxa ku lifaaqan warqadii dambilaantiisa caafimaadka guddiduna golaha waxay ka codsanaysaa xubintaas inuu bixiyay shuruudihii loogu talagalay intaasi kadib xildhibaanadu waxay guda galeen meel marinta labadaasi xubnood iyagoo mid ugu gacan taagay isla markaana halkaas ku laalay labadaasi xubnood gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Mudane Baasha Maxamed Faarax ayaa isagu natiijada halkaasi ka akhriyay Cabdifataax Ibraahim Xasan waxa ogolaaday in la asixiyo 29 xildhibaan 8 xildhibaan waa diiday 14 waa ka aamusay gudoomiyuhu ma codayn Cabdifataax Ibraahim Xasan sidaas uu kaga haray komishankii Maxamuud Siciid Dalmar waxa asixiyay oo ogolaaday in la asixiyo 30 xildhibaan 6 xildhibaan waa diiday 13 waa ka aamusteen gudoomiyuhu ma codayn Maxamuud Siciid Dalmar 41 xildhibaan laga rabay lagu asixiyo waa waayay labaduba saasay fadhiga waa xidhay